xubno ka tirsan ururka al-shabaab ayaa waxaa la sheegay in ay weerar ku qaadeen kolonyo ay leeyihiin ciidamada Kenya ee ka tirsan howlgalka midowga Afrika ee AMISOM xilli ay ku socdaalayeen deegaano ka tirsan gobolka Jubbada Hoose. Weerarka oo iskugu jiray qarax iyo mid toos ah ayaa waxa uu ka dhacay inta u dhaxaysa deegaanada Kamboni iyo Burgabo oo ka tirsan gobolka Jubbada Hoose, waxaana halkaasi ka dhacay dagaal u dhaxeeyay ciidamada Kenya iyo al-shabaab. Dadka deegaanka ayaa waxa ay ku warameen inay maqlayeen jugta qaraxa iyo rasaas ay isweydaarsanayeen labada dhinac, hase yeeshee aan si rasmi ah loo ogeyn khasaaraha ka dhashay dagaalka. Al-shabaab ayaa warar waxa ay ku qoreen baraha bulshada ee taageera waxa ay ku sheegteen inay weerarkaasi ku gubeen gaari cabdibilaha, sidoo kalena ay dileen 4 askari oo ka tirsan ciidamada Kenya, walow aysan jirin dad madax bannaan oo xaqiijinaya warkaas. Wararka ayaa waxa inta ay ku sii darayaan in ciidamada Kenya ay iska sii wateen socdaalkooda iyagoo sidoo kale sameeyay howlgal miino baaris ah, maadaama dhowr jeer lagu qarxiyay wadada u dhaxaysa deegaanada Kamboni iyo Burgabo ee gobolka Jubbada Hoose. Inta badan deegaanada iyo degmooyinka gobolka Jubbada Hoose waxaa qaraxyo iyo weerar toos ah lagula eegtaa ciidamo ka tirsan Kenya iyo kuwa Jubbaland, walow mararka qaar ay qaadaan weeraro ay kula dagaalamayaan xarumaha al-shabaab. waa maalin farxad weyn iyo guul u soo hoyatay shacabka Soomaaliyeed, gaar ahaan shacabka magaalada Muqdisho, oo aan rajaynayo inay maanta wixii ka bilowda ay nabad ku naaloon doonaan, nabadii hore u jiri jirtayna ay dib ugu soo noqon doonto. waxaan rabaa halkan inaan ka xuso far kaliya foolma dhaqdo. waxaan rabaa dhammaantiin inaad mas'uuliyadda ila qaadeen. guddiga fulinta guddiga waa inuu igu daba galaa oo hawsha sidii loogu rabo ugu qabtaa. madaxweynayaasha hore waxaan ka codsanayaa madaxweynayaasha maamul goboleedyada iyo ra'iisul wasaarihii hore iyo musharaxiinta dhammaanteen mas'uuliyadana saaran. rooble kaliya lagu halaynin, sababtoo ah doorashaad ii dirsateen inaad idin maamulo cadaalad iyo si nabadgelyo si xor ay u dhacdo. marka tan haddii la ii saaro hadda taasaan gacantayda ka baxayso. marka waxaan rabaa gacan ayaad idinkaga baahanahay insha Allah. haddaysan waa doontii dhinac ka duleyshamin, marka gacan ayaan idinkaga baahanahay. shacabka Soomaaliyeed gaar ahaan shacabka Muqdisho waxaan leeyahay idinkana gacan ayaan idinkaga baahanahay. maanta wixii ka dambeeyo mas'uuliyadda amniga waxaan rabaa inay adkeeyaan hay'adda booliiska Soomaaliyeed oo ah hay'adda ugu sarreeyay amniga magaalada sugayso. waxaan rabaa hay'adda booliiska Soomaaliyeed, ciidamada booliiska Soomaaliyeed inaan amro faro inay ilaaliyaan amniga muwaadinka Soomaaliyeed, inay ilaaliyaan amnigayga, amniga madaxweynaha, amniga musharaxiinta iyo amniga qof kasta oo Soomaaliyeed. saa darteed waxaan rabaa inaan cidna lagu xadgudbin, cidna dhib loo geysan, in la ilaaliyo kaliya oo amniga qof kasta oo Soomaaliyeed. marka taas ayaan farayaa. waxaan kaloo rabaa halkan inaan ka sheego walaalahay musharaxiinta ah, insha Allah waa idinka ballan qaadayaa inaan qofna xigsan doonin. waa idinka ballan qaadayaa in doorashadaasi xor iyo xalaal ay ku dhacayso. marka insha Allah qalbigiina khayr u sheega, laakiin gacan idinkaga baahanahay. haddaan aragiina waayo haddaan waayo hadda biyaha meeshaas ka soo galaan la socda. ciidamada waxaan leeyahay inay sida ugu dhaqsiyaha badan goobahooda ay ku noqdaan ayaan farayaa. qof ciidan oo lagu xadgudbayo ma jiro. ciidanku ma lahan xaafid iyo mucaarid. ciidanku ma lahan kana qaldanaa iyo kana saxsanaa. ciidanku waa mid, ciidanku waa ilaaliyaha guud ee qaranka. ciidanku waa la dagaalaha al-shabaab, argagixisada al-shabaab. marka waxaan leeyahay ciidanka midnimada adkeeya. maanta waxaan ku sugannahay dal dowladnimadiisii ay riski ku jirto, dal baarlamaankiisii labadii aqal ah uu qaybsan yahay, dal dowladdii dhexe iyo dowlad goboleedyadii ay qaybsan yihiin, dal maxay ugu dambeeyey oo ahay ciidamadii amnigana hadda ay qaybsan yihiin. meeshaas annagoo joogna dadaallo dheer ka bacdi iyo juhdi badan ka bacdi rajo cusub ayaa hadda soo baxday. taladii waxay ku wareegtay oo lagu wareejiyey bacda shidda wa tacab prime ministerka. dadka Soomaaliyeed waxaan rabaa inaan u sheego rajo fiicanaa jirta. marka maanta prime ministerka Maxamed Xuseen Rooble niman aqaano waaye aniga, nin aad iyo aad qalbigiisu nadiif u yahay, nin aad iyo aad go-aan qaadashiisu ay u adag tahay oo wanaag aan ku aqaano waaye. maanta waxaan rabaa marka wixii kala qaybsanaan iyo dhibaatahay inay meeshaas ku haraan oo aan prime ministerka
aan xooggeena iyo caqligeenna aan isugu geyno si aan u xaqiijino muddo yaroo kooban xaaladda dalka uu ku sugaya kuma sii sugnaa kara muddo dheer muddo yaroo kooban in dalku doorasho ay ka dhacdo hoggaan cusub la doorto dowlad cusub la doorto ciddii soomaali oo ilaahay u calfa ha noqoto nabadna ay ku dhammaato waddada ugu gaaban ugu sahlan iyo juhdiga ugu fiican ee aan ku bixi karnaan waxay tahay inaan prime ministerka iyo xafiiskiisa inaan xoojino oo aan garab istaagno oo aan la shaqeyno golaha midowda murashaxiintu go-aanay ku gaareen in prime ministerka lala shaqeeyo waana la shaqeynay waana la shaqeynaynaa tallaabooyinka ilaa iyo hadda prime ministerka uu qaaday waa bogaadinaynaa waa ammaanaynaa waa ididiile iyo ifafaalo fiican guddiga xalinta khilaafka ka dhex yimiday ciidamada amniga arrin soo dhoweyn mudan waaye shirki uu iclaamiyey iyo maalintii iyo taariikhdeedii la fix gareeyey oo la dejiyey waa arrin kaloo ayadana soo dhoweyn mudan bisha 20keeda in oo la isugu imaanayo shirki oo la wada hadlayo tallaabooyinkaas ilaa hadda uu prime ministerku qaaday dhammaantood ididiilaa ka muuqato rajaa ka muuqato laakiin dee inaan prime ministerka idhab anta warabuka faqaatilaa inaan dhahno inaa haahunaa qaaciduun ma aha prime ministerka keligiisa hawshaan waa hawl culus asaa hoggaanka ah annagana waa la shaqeynayna hadii ala yiraha waxaan rabaa inaan sheego ciidamada amniga ee magaaladan yimiday waa ciidanka qaranka waxay u taagnaayeen inay dastuurka difaacaan inay dimuqraadiyadda difaacaan wixii caalamku diiday oo siyaasiyiintu diideen oo ummadda inta badan ay diideen ayay ayaguna dhinacooda ka diideen ay ku kaalmeeyaan dhibaato kale iyo dembi ma ay geysan ammaanay mudan yihiin iyo in la abaal mariyo waan rajaynaynaa markaa in oo kii maya yiri iyo kaan dhihinba maanta in la isku yimaado ciidamadeena dib isugu ceshano cadowgii aan lahayn aan mar kale dib ugu jeesano horay u soconno sida xalka fiican oo ku jira waa midaas sidaas daraaddeed xafiiska prime ministerka iyo hoggaankiisa iyo guddiga mushkiladahaas xalinaya ee 11ka uu magacaabay dhammaan annagu waa la shaqeynay 24 saac magacaabistooda wixii ka dambeeyey ilaa shalay iyo xalay haddana waa la shaqeynaynaa si buuxdaan ula shaqeynaynaa waxaan rabnaa xal degdega in la gaaro waxaan u hambalyaynaa muxuu ahay prime ministerka dadaalkiisaan bogaadinaynaa juhdiga uu wadaa rajo ka muuqataa dalkuna maanta rajo fiican uu leeyahay jiha fiican uu u jeestay jihadaas fiican u jeestaana u wada taagannahay ayadaan ka shaqeynaynaa